عليكم. وعليكم السلام ورحمة. waxaa ka mid tahay odayaasha degmada Bandarbayla bal goobta aad joogtid iyo doorashada sida looga arko. walaal waxaan joognaa Bandarbayla doorasho oo xalaal ah Soomaaliya oo dhan baa u baahan horumarka u baahan bulshooyinka u baahan laakiin kan mugdi badan baa ku jira. marka sidaa daraaddeed waxay leenahay annagu doorashada la xalaaleeyo dibna laamigaas ay u badnayd waxaanu maqalay ciidamada la soo dirayaa Bandarbayla loo soo dirayaa iyo niman maaragta doorashooyinka iyo kulliba membarka ah qaybta ah doorasho annagu aan ogolahay ma jiro Bandarbayla doorasho kama dhacayso aan ka dhicin dibna intay badnayd oo maxaa dibna ay u badnayd annagu doorasho dibna horta asalka markaan kaaga warramo qabaa'il iyo deegaamo la isku darsaday weeye ma garan deegaamadii la isku darsaday waa la isku duulay annaga matalaad baanu ahayn dowladda qayb baanu ka ahayn waxa weeyaan ma shaqaysa hadda muddo ma shaqaynayn waana la kaga baxay deegaanka iyagana wax doorasho ah oo ka dhici kadha annagu ma ogolin odayaal badan baanu ku fadhinaa halakan rag dumar badan baanu ku fadhinaa rag badan baanu ku fadhinaa shir baanu u fadhinaa hadda aanu ku xaqiijinayno go'aamadayada naga soo baxay ujeedada arrinta aanu ka taaganahay ma garan sababta aad ku diidantihiin maxay tahay marka in doorasho deegaanka in laga qabto kow waxay tahay horta anagu midaan xuduudii degmada Bandarbayla doorashada tano kuma socoto doorasho waxa weeye qallafsan weeye habawshay weeye hor yaraan midaan hala isku xuduudii degmadayada goob wax badan oo khalad ah oo dhinaceeda ka soo jeeday baa jiray waxaa jiray midda labaad aan kugu daraayo waxay tahay matalaad baanu lahayn dowladda qayb baanu ku ahayn wasiiraanu ku ahayn laba dowladood oo haddeer kala dambeeyey oo midna kaa Sheekh Cabdullaahi oo madaxweyne hadda ka yahay midna uu yahay ninka la yidhaahdo Cabdiweli aanu ku ahayn kama haysano ma garan sababta labaadna waxay tahay doorashada tan deegaano calaamadsan oo mucayin ah baa doorashooyinku ka dhacaysa annaga degmadayadu si waxbaa xaaladeeda bayfayrs bay jirisay iyadoo xuduudii degmada lagala codaynayay iyo seegooyinkii lagu codaynayay iyo baxasha la xalaalayn annaga kuma jiro mana laga codayn karo deegaanadayada Bandarbayla lagama codayn karo waana diidanahay waa kasoo horjeednaa lasabahaasaan nagu ku diidanahay deegaankayadii waan xuduudiisu qeexanayn iyo matalaadii siyaasadeed oo aanu dowladda ku lahayn oo aanaan ka haysan midna kuma jir labadaas haddaan la xalin annaga doorasho uma diyaarsanin mana soo dhaweynayno midda saddexaad waxay tahay doorashada Puntland laamigaasay u badnayd doorasho xalaala hadday tahay walaalow garowa lagu qaban lahaa haddaa lagu qaban lahaa boosaaso lagu qaban lahaa waxaa la yidhi haddaan gurbaha bari ku jirin habeenka loo tumaa markii intaa la soo mariyaa eedaha iyo sida gaariyaada iska ahaa loo iman karaa laakiin waxaan ka soo baraabaynaa tuhun badan baa ku jira baylaan ka baraabaynaa xeer baa tegaynaa waxa weeyaan si kalaanadu aragnaa ma garan waa garta marka haddii hadda sida hadda dani ka muuqatay hadaladii ugu dambeeyay uu jeediyay waxa uu yiri in doorashada la qabanayo taasoo ku adkaystay iyadoo ururada mucaaradkana ay arintan ay diidan yihiin qaabka diiwaangelinta iyo howlahan arrimo badan la soo jeediyay guddiga doorashooyinkana aanu wali arrimahaasi aan sixin dhaliilaa loo jeedinayo marka haddii la isku dayo in doorasho la qabto oo ama diiwaangelinta hadda si rasmi ah maanta loo bilaabo ay uga hirgasho maxaa idin qorsheysan oo tallaabo ah ما دي أنا عارف شو كذا اللي مرة عبا عارف شو كان حدودي مرة عنه حضر بدنا يبقى كم مكان بهلا هو تشير بعض هاي ورقة حوالي صلاة مليا ما نخمن معي ورشدنا وحوالي على روح أنا كنت مدرنا هاي وحوالي حدود يجينا بشكل وبدنا بفيرس كذا فالمثلا بيقولوا اللي ممكن ما نحضر نوعها أو ما تبين يعني وجهنا بدنا نشوفه قد إيه أجمع الحليل ها مثلا حول برشلي والكامل ديمقراطية على الحواء أنا اشتغل على تشتغل معرفة استعمال حركات حال لكن واحد لا مثلا برشلي لكن أنا هو الدولة بيكمل هاي
وأن بنيا وحنا بنجرين أو خيجنا واحد كتبت ولا جرانين حدود دي سينا قصقاصنتها ولا كمجرين waa tahay marka arrinta xuduudda aad ku soo celcelisay ma loo fasiran karaa inaad diidan tihiin degmooyinka baarlamaanka Puntland xilligii Cabdiweli Gaas ay aqoonsadeen ama loo ansixiyay inay degmooyin yihiin oo danina uu haatan ku soo daray degmooyinka doorashooyinka ay ka dhacayaan marka idinku inaad degmooyinkaas inaad ka soo horjeedaan oo doorashada sababta aad u diidan tihiin taa ma loo fasiran karaa maadaama xuduudaha ku soo celcelisay degmo kasta waxay leedahay qawaaniin baa jira la maro oo rool ah oo degmadaas codka aad ka dooranayso xuduud mucayana leedahay goobo mucayan laga odayo leedahay kan waxa weeyaan waa iska horosoco weeyo askari meel baa tegaya oo laga odaynaya meel kale tegaya oo magac kale leh meel waxaana shubka kan inta laalaalo oo la jaxsiyo horta wixii maxadiyada degmaa حدية دقمة كلاء حدية قشعة لأنكم مجرد مجد بدن بعالك كجرا بايرة وحن خدنا مركز خلابا إلا قاعد أيوه هذا الكوائرو عادي هاي إن بايرة حدود اللي يقان أيوه لقاعد أيوه ولقى الشيء يوم مثلا بيجي السياسات وماشي دي تكا وسيد وقعدة وده كله مثلا يبدأ لو عن الدقمة ولا هذا عن قاعد على بالله